waxa ay ku bilaabatay xafladoodii arooska jawi farxadeed balse markii dambe isku bedelay murugo iyo in la badbaadiyo dadkii halkan ku sugnaa. boosaneer ku hoos yiilay hoolkan oo damaashaadkii arooska uu ka socday ayaa si lama filaana ku dumay waxaana ku daatay oo laga soo saaray xubno ka mid ah caruuska qoyskiisa oo hooyadiis ay ka mid ahayd. 3 dumar ayaa ku dhaawacmay sida uu Shabeelle TV u sheegay Saalax Xuseen Raage oo ah maamul ku xigeenka xarunta Qoobay oo ay xafladu ka dhacaysay. waad u jeedaan meeshan waxa ka dhacay wax oon yar carra jilacday boosaneer ma oo sadumin wax dumitaana ma jiro. waad u jeedaan indhihiin ayaa macalinahay waati hadaata aad boogtaan waxa dumay boosaneerka geeskiisa. boosaneerka geeskiisa markuu dumo waa taqaanaa Soomaaliya carradeeda aad ay iskaga jilacsan tahay. waxa lagu shubo waa maqaayad biyaheeda biyuhu baa waxay ka qodeen hoos markay hoos ka qodeen ayaa on wax yar oo dumitaana yimid. ilaahay amarkiisa 3 qof ayaa ku taraaraxday. 3 qof waan qabanay. 3 qof markii la qabtay waxaan u diyaarinaa anaga markii aan hoolka aan kireyno shaqaalo kormeer ah. gabar kalena waa ka soo qabto afkan hore saarneed waa ka soo baxshay. halka gabar ugu darneed waa gabadhii aan soo aragtay aan ku soo tusay waaye gabadhaas oo dhabarka iyo waayahay waxaan u sii soconaa hadda guriga ay degan yihiin arooska iyo aroosada. xalay xafladoodii ay mashaqada ka dhacday waxaan la socdaa mid ka mid ah wiilasha la dhashay wiilka arooska ah oo hadda bal gurigooda ii wada si aan idinku soo gudbino xaaladda rasmiga ah ee gurigaas ka jirta. Ismaaciil Maxamed Cali iyo Sadri Axmed Cabdilaahi waa lamaanaha ay xalay farxadoodii aqalgalka saameysay mushkiladan. waxay sheegeen hoolka xilliga ay ku soo socdeen in loo sheegay in mashaqadan ay dhacday balse ay ku nagaadeen halkoodii. meesha saad wada ogtiin waxay ahayd hoolka Qoobay waqtigaas ee xafladda socotay waxaa joogay familka iyo asxaabta iyo bulshadii meesha ka soo qayb gashay. annaka waa ka maqneen si aan maqlay dad waxay lahayn meeshii dhoobnaayeen arooskii aroosadii laakiin waxaas waa been. annaka waa maqneen meesha ma imaanin qof walba meesha uu isku soo diyaarayo jiray. hadda waad dareemi kartaa meeshii mar hadday musiibo iga dhacday oo tii alle ay imaatay qof walba meeshiisuu ku hakaday. waa ku qanacsanahay annaka qatartii dhacday kama weynin wax kasta tii alle waaye ma fahanta. dadada waxay yiraahdeen arooskii aroosadii meesha waa lagu leeyahay waxaas waxba kama jiraan waa kuwaana waa is joogaan ma fahanta. hadda ilaahay mahadiis waa saa adiga arkaydid xaafadda waa lagu ladan yahay. gabar xoogay walaashay iyo wax saas wax yar isku gaarin aydan insha Allah caafimaad u rajeynayna. Nadiifo Caashi Aadan oo ah caruuska hooyadiis iyo Mulki Cismaan Diiriye oo ehel ah ayaa ka mid ahaa dadkii ay dhaawacyadu fudud ka soo gaareen boosaneerkii dumay ee hoolka xafladda. waxaana ku booqanay xarun caafimaad oo lagu dabiibayay. markuu saa ila go'ay gabadhii waa mirqay mid waa la jiiday midna waa mirqday anigana gabdha ay soo jiiday wiila ay yimid dhaxda uga qabtay halkaas uga tuura. gabara marka salaamayna meesha taagnaadana u imaatay gabadhii marka salaanay gabadha macnaha maamadan hindin salaantay gabadha waa ka tagay ani waa taagnaa geeska marka fiiriyana qaab waxa maqlay marka fiiriyo meesha waa badunta waa ila go'day. أنا صاستي أوفيري وابد أنت ماشي دمج أنا قلت كعاد ماشي حركة بتجيبه. dhacdadan oo ahayd mid naadir ah ayaa ilaa xalay lagu hadalhayay baraha bulshada iyadoo warar kala duwan ay ka qoraysay warbaahinta gudaha sida ay wax u dhaceen. Maxamuud Soofeysane TV-ga Shabeelle Muqdisho. waxa ay ku bilaabatay xafladoodii arooska jawi farxadeed balse markii dambe isku bedelay murugo iyo in la badbaadiyo dadkii halkan ku sugnaa. boosaneer ku hoos yiilay hoolkan oo damaashaadkii arooska uu ka socday ayaa si lama filaana ku dumay waxaana ku daatay oo laga soo saaray xubno ka mid ah caruuska qoyskiisa oo hooyadiis ay ka mid ahayd. 3 dumar ayaa ku dhaawacmay sida uu Shabeelle TV u sheegay Saalax Xuseen Raage oo ah maamul ku xigeenka xarunta Qoobay oo ay xafladu ka dhacaysay. waad u jeedaan meeshan waxa ka dhacay wax oon yar carra jilacday
boosaneer ma uusan dumin wax dumitaana ma jiro waad u jeedaa indhihiin ayaa macalinahay waa tii haddaata aad boogtaan waxaa dumay boosaneerka geeskiisa boosaneerka geeskiisa markuu dumo waa taqaanaa Soomaaliya carradeeda aad ay iskaga jilacsan tahay waxa lagu shubo waa maqaayad biyaheeda biyuhu unbaa waxay ka qodeen hoos markay hoos ka qodeen ayaa on wax yaroo dumitaana yimid ilaahay amarkii 3 qof ayaa ku taraaraxday 3 qof waan qabanay 3 qof markii la qabtay waxaan u diyaarinaa anaga markii aan hoolka aan kireyno shaqaalo kormeer ah gabar kalena waa ka soo qabto afkan hore saarneed waa ka soo baxshay halka gabar ugu darneed waa gabadhii aan soo aragtay aan ku soo tusay waaye gabadhaas oo dhabarka iyo waayahay waxaan u sii soconnaa hadda guriga ay degan yihiin arooska iyo aroosadda xalay xafladoodii ay mashaqada ka dhacday waxaan la socdaa mid ka mid ah wiilasha la dhashay wiilka arooska ah oo hadda bal gurigooda ii wada si aan idinku soo gudbinno xaaladda rasmiga ah ee gurigaas ka jirta Ismaaciil Maxamed Cali iyo Sadri Axmed Cabdilaahi waa lamaanaha ay xalay farxadoodii aqalgalka saameysay mushkiladan waxay sheegeen hoolka xilliga ay ku soo socdeen in loo sheegay in mashaqadan ay dhacday balse ay ku nagaadeen halkoodii meesha saad wada ogtiin waxay ahayd hoolka qoobay waqtigaas ee xafladda socotay waxaa joogay familka iyo asxaabta iyo bulshadii meesha ka soo qayb gashay annaka waa ka maqneen si aan maqlay dada waxay lahayn meeshii dhoobnaayeen arooskii aroosadii laakiin waxaas waabeen annaka waa maqneen meesha ma imaanin qof walba meesha uu isku soo diyaarayo jiray hadda waad dareemi kartaa meeshii mar hadday musiibo iga dhacday oo tii alle ay imaatay qof walba meeshiisuu ku hakaday waa ku qanacsannahay annaka qadartii dhacday kama weynin wax kasta tii alla waaye ma fahanta dadada waxay yiraahdeen arooskii aroosadii meesha waa lagu leeyahay waxaas waxba kama jiraan waa kuwaana waa is ag joogaan ma fahanta hadda ilaahay maadiis waa saa adiga arkaydid xaafadda waa lagu ladan yahay gabar xoogay walaashay iyo wax saas wax yar isku gaarin aydan insha Allah caafimaad ay u rajaynaynaa Nadiifo Caashi Aadan oo ah caruuska hooyadiis iyo Mulki Cismaan Diiriye oo ehla ah ayaa ka mid ahaa dadkii ay dhaawacyada fudud ka soo gaareen boosaneerkii dumay ee hoolka xafladda waxaana ku booqanay xarun caafimaad oo lagu dabiibayay markuu saa ila go'ay gabadhii waa mirqay mid waa la jiiday miduna waa mirqday anigana gabdha ay soo jiiday wiila ii yimid dhexda uga qabtay halkaas uga tuura gabaraa marka salaamayna meesha taagnaada nagu imaatay gabadhii markaas salaanay gabadha macnaha maamadan hindani salaantay gabadha waa ka tegay ani waa taagnaa geeska markaa fiiriyana qaab waxa maqlay markaa fiiriyo meesha waaba duntaba waa ila go'day anoo saastii u fiiriyo waaba danta meesha damag ani godka aad meesha xaarkaaba tagaba dhacdadan oo ahayd mid naadir ah ayaa ilaa xalay lagu hadalhayay baraha bulshada iyadoo warar kala duwan ay ka qoraysay warbaahinta gudaha sida ay wax u dhaceen maxamuud soo faysane TV-ga Shabeelle Muqdisho waxa ay ku bilaabatay xafladoodii arooska jawi farxadeed balse markii dambe isku bedelay murugo iyo in la badbaadiyo dadkii halkan ku sugnaa boosaneer ku hoos yiilay hoolkan oo damaashaadkii arooska uu ka socday ayaa si lama filaana ku dumay waxaana ku daatay oo laga soo saaray xubno ka mid ah caruuska qoyskiisa oo hooyadiis ay ka mid ahayd 3 dumar ayaa ku dhaawacmay sida uu Shabeelle TV u sheegay Saalax Xuseen Raage oo ah maamul ku xigeenka xarunta Qoobay oo ay xafladdu ka dhacaysay waad u jeedaan meeshan waxaa ka dhacay wax oon yar carra jilacday boosaneer ma uusan dumin wax dumitaana ma jiro waad u jeedaa indhihiin ayaa macalinahay waa tii haddaata aad boogtaan waxaa dumay boosaneerka geeskiisa boosaneerka geeskiisa markuu dumo waa taqaanaa Soomaaliya carradeeda aad ay iskaga jilacsan tahay waxa lagu shubo waa maqaayad biyaheeda biyuhu unbaa waxay ka qodeen hoos markay hoos ka qodeen ayaa on wax yaroo dumitaana yimid ilaahay amarkii 3 qof ayaa ku taraaraxday 3 qof waan qabanay 3 qof markii la qabtay waxaan u diyaarinaa anaga markii aan hoolka aan kireyno shaqaalo kormeer ah gabar
kalena waa ka soo qabto afkan hore saarneed waa ka soo baxshay halka gabar ugu darneed waa gabadhii aan soo aragtay aan ku soo tusay waaye gabadhaas oo dhabarka iyo waayahay waxaan u sii soconnaa hadda guriga ay degan yihiin arooska iyo aroosadda xalay xafladoodii ay mashaqada ka dhacday waxaan la socdaa mid ka mid ah wiilasha la dhashay wiilka arooska ah oo hadda bal gurigooda ii wada si aan idinku soo gudbinno xaaladda rasmiga ah ee gurigaas ka jirta. ismaaciil maxamed cali iyo sadri axmed cabdilaahi waa lamaanaha ay xalay farxaddoodii aqalgalka saamaysay mushkiladdan. waxay sheegeen hoolka xilliga ay ku soo socdeen in loo sheegay in mashaqadan ay dhacday balse ay ku nagaadeen halkoodii. meesha saad wada ogtihiin waxay ahayd hoolka qoobey waqtigaas ee xafladda socotay waxaa joogay familka iyo asxaabta iyo bulshadii meesha kasoo qayb gashay. annaka waa ka maqneen si aan maqlay dadaa waxay lahayn meeshii dhoobnaayeen arooskii aroosadii laakiin waxaas waa been. annaka waa maqneen meesha ma imaanin qof walba meesha uu isku soo diyaarayo jiray. hadda waad dareemi kartaa meeshii mar hadday musiibo iga dhacday oo tii alle ay imaatay qof walba meeshiisuu ku hakaday. waa ku qanacsanahay annaka khatartii dhacday kama weynin wax kasta tii alla waaye ma fahanta. dadadaa waxay yidhaahdeen arooskii aroosadii meesha waa lagu leeyahay waxaas waxba kama jiraan waa kuwaana waa is ag joogaan ma fahanta. hadda ilaahay mahadiis waa saa adiga arkaydid xaafadda waa lagu ladan yahay gabar xoogay walaashay iyo wax saas wax yar isku gaarin aydan insha allah caafimaad ay u rajaynaynaa. nadiifo caashi aadan oo ah caruuska hooyadiis iyo mulki cismaan diiriya oo ehla ah ayaa ka mid ahaa dadkii ay dhaawacyadu fudud ka soo gaareen boosaneerkii dumay ee hoolka xafladda. waxaana ku booqannay xarun caafimaad oo lagu dabiibayey. markuu saa iila go'ay gabadhihii waa miriqay mid waa la jiiday miduna waa miriqday anigana gabdhaa isoo jiiday wiila ii yimid dhexda uga qabtay halkaas uga tuura. gabaraa marka salaamayna meesha taagnaada nagu imaatay gabadhii markaas salaanay gabadha macnaha maamadan hindani salaantay gabadha waa ka tegay ani waa taagnaa geeska markaa fiiriyana qaab waxa maqlay markaa fiiriyo meesha waaba duntaba waa ila go'day anoo saas tii u fiiriyo waaba dunta meesha damaga aniga godka aaday meesha xaarkaaba tegaba. dhacdadan oo ahayd mid naadir ah ayaa ilaa xalay lagu hadalhayay baraha bulshada iyadoo warar kala duwan ay ka qoraysay warbaahinta gudaha sida ay wax u dhaceen. maxamuud soo faysane TV-ga Shabeelle.